isku dhacay wax anaga sameeyna ma aha laakiin alxamdulillah wax walba okay ahaayeen kelidana sida dadka moodayeen oo qofka inuu dhimanayo ma aha waa operation aad u fudud 2 saac iyo bar u qaatay iyada iga horeysay subaxdii 8 gashay anigana 12 ka galay kadibna wuxuu qaatay 2 saac ilaa 2 saac iyo bar wiil muslimana iyo ah ninkii qalay xaalad wallahi okay ilaa hadeertan waxaan dareemayaa caafimaad aad u badan alxamdulillah family friends everyone we imaaday full support dad badan oo fiican ducadii doorta dadka iisu duceeyay adduunka dhan kulli ducadood waa la aqbalay taas anaa ku garantay kulli ducadood waa la aqbalay qoftaan horta this is Maryam waa gabadhan walaashay Maryam gabadhii kelida isiisay mahad weyn ay mataqaanaa Soomaalida ku leedahay qof muddo is garanayna way dadku waxay u maleeyaan in hadda is baranay waa qof aan muddo badan saaxiib ahayn over 10 years friendship 12 years to 12 sano shaqo badan soo dhex martay wax badan fikradaas dhaafsanay laakiin kelida markaas kugu imaanay waji kale ah runta markaa sheegana wadno waxay haysataa caadi ahayn qoftaan cajiib ah. No, I'm feeling surprisingly very well. I thank God. alla ayaa mahad iska leh waxa kale oo aan aad ugu mahad celinayaa dhaqaatiirta iyo nidaamka wanaagsan ee cisbitaalada Norway dabcan waxay ugu qaadatay muddo 2 sano ah inaan arintan u diyaar garoobo markii aan ogaaday in saaxiibkay walaalkay Cabdiraxmaan uu xanuunsan yahay oo uu kali u baahan yahay maanta walaalkay waan isag fadhinaa isaga oo caafimaad qabo haddii aad og tahay qof walaalka ah saaxiibka oo u baahan caawintan oo kale ah aniga waa ii jeedaa 5 casho kadib isbitaalka waan ka soo baxay oo sida la moodaayo ma aha dabcan cabsi way jirtaa laakiin waa wax fiican walaalka inaad badbaadisay. So I just thought let's help each other, and I think if you have somebody you care for, or if you know somebody that's struggling with any type of kidney problem or other organ problem, just share it. Dare to look for help because there is help there, and it can go much smoother than you could ever imagine. Hassan Saeed